waxaanad ogsoonataa waxay dhahdaan culammadu iyagoo aayad qur'aana daliishanaya aadanuhu laba ceebood buu leeyahay bay yidhaahdaan ama laba cawro laba ceebood oo u baahan in la qariyo buu wada leeyahay labada saw'aba ilaahay sutra buu u sameeyey wax lagu qariyo cawra waa cawradan jidhkii aynu naqaano waxaynu ku qarinaa dharka isla markaana waynu isku qurxinnaa dharka waxaynu u xidhannahay sababo badan laakiin sababta koowaad waxa weeyaan inaad cawradaada asturto sababta labaad aynu u xidhannaana waa maxay waa inaynu isku qurxinno oo dee cawrada maro kastoo aan isku duuduubna waa qarin lahayd laakiin waxaad mid gaara u tolotay ee u soo kaakaawadaysay ee saan ugu gashay inay liziina kuu noqoto haddaba hadday jidhka sare maradu asturto cawrada hoosena akhlaaqda asturta qofku hadduu akhlaaq leeyahayna waa asturan yihi hadday akhlaaqdu kugu yartayna cawradaadaa muuqata dadka badh baa markuu waddada kaaga soo baxo aad sodhanaysaa ka weeco nebigu calayhi salaatu wasalaam qaar buu wuxuu yidhi si fiican u salaam markaasay ku tiri caaisha sawkii ninkan aad warkaa ka sheegtay bi'sa akhul cashiira buu ku yidhi markaasuu yidhi waa kuwa sharkooda lagaga nabad galo yacni dadka badh baad isku dayeysaa the minimum wakhtiga ugu yar inaad la qaadato waayo waxaad isleedahay keliya nabadgeli maysid haddaad wakhti badan la sii joogto sidaa awgeed qof kastoo inaga midi subaxii markaad toosto waad wejigaad dhaqataa afkaad cadayataa waad isnadiifisaa haddaad nin qolada sare ah tahay waad isa sii buufbuufisaa waxaasoo dhan waxaad u samaynaysaa aadamahaad u tegaysaa inaanu ama ur aan qurux badnayn kaa helin ama muuqaal fool xun le aan kugu arag waxa ka qurux badan jamaalul afcaalka in dhaqankaagu qurux leeyahay ayaa ka qurux badan marada sare la xidho taasaa u baahan inaad dadaasho oo aad isku daydo qof waliba wuu is ogyahay ceebihiisa qof aan is aqooni ma jiro mostly waad isgaranaysaa meelahaad hanjafka ka tee ka gaaban tahay haddaba waxaad u baahan tahay inta aanad cadayga iyo marada iyo cadarka iyo shaambooyada ka fekerin inaad ka fekerto qalbiga iyo saaad u daahirin lahayd saaad naftaada uga dhigi lahayd naf rabbaysan ilaahay wuxuu leeya yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariisha walibaasu taqwa dalika khayr waa reer nebi aadama waxaan idiin soo dejiyey baa ilaahay leeyahy libaasan yuwaari sawaatikum maro ama hu aa ku qarin kartaan cawradiinna iyo wariishan baa ilaahay yidhi iyo ku la isku qurxiyo laakiin waxaa la sheego kale walibaasu taqwa dalika khayr baa la yidhi huga taqwada huga dhaqanka iyo akhlaaqda iyo alla ka cabsiga ayaa ka khayr badan waxa kale oo dhan waxaan leenahay markaa waa laba hu oo la wada qaate yuu noqon ninkaad muhiimadda siinaysaa kan sare hooyada aabbaha ilmaha maryo fiican ma loo talo ciiddii maro ma la siiyey innaga dhammaanteen waxaad moodaa